jab kale oo xooggan ayaa gaaray kooxda khawaarijta ee al-shabaab. Tuulooyin ay ka mid tahay tuulada Tawakal ee aagga Janaale ayaa kooxda khawaarijta waxaa howlgal qorshaysan oo ay fuliyeen ciidamada NISA iyo saaxiibada kale ee caalamiga ah ee Soomaaliya ka taageera dhanka howlgallada ay ku laayeen kooxdaasi oo markaasi si gaar ah ugu sugnaa meel ay iyagu ugu magacaawdeen baraagta Beder. Tiro gaaraysa 136 khawaarij oo horjoogayaal ay ku jiraan ayaa lagu dilay howlgalkaasi sida uu inoo xaqiijiyay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Al Cadaala. waxaan ku bilaabayaa howlgal qorshaysan oo ciidanka hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA iyo saaxiibada caalamiga ah ee taageera dagaalka ka dhanka ah khawaarijta ee ka socda dalku ay ka fuliyeen gobolka Shabeellaha Hoose. howlgalkaas oo bilowday maalintii shalay ahayd waxa uu ka dhacay dhul ballaaran oo kayn ah oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan ku yaala inta u dhaxaysa tuulooyinka Tawakal iyo Garasjeereed oo 12 kiiloomitir dhanka galbeed uga beegan degmada Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose. howlgalku waxa uu si gaar ah uga dhacay goob weyn oo ah war dadka gobolkaas ay si weyn u yaqaanaan khawaarijtuna ay ula baxeen warta Beder. goobtaas waxa ay maleeshiyaadka khawaarijtu ku soo aruuriyeen koox maleeshiyaad ah oo dhowr boqol gaaraya kuwaas oo ay u diyaarinayeen in ay ku weeraraan shacabka Soomaaliyeed waxyeelana ay ugu geystaan. howlgalka oo ah mid socda ilaa hadda waxaan ilaa hadda qiimaynta aan sameynay ku xaqiijinaynaa halkan in lagu dilay 136 ka mid ah maleeshiyaadka khawaarijta ee halkaas ku sugnaa. waxaa sidoo kale goobtaas lagu dhaawacay 98 ka mid ah maleeshiyaadkii khawaarijta ahaa ee goobtaas muxuu ahaa ku sugnaa. dadka halkaas lagu dilay waxaa ku jiray horjoogayaal ka tirsan maleeshiyaadka khawaarijta ah oo la daba socday kuwaas oo aan ka magacaabi karno horjoogaha lagu magacaabo Salmaan Dheere oo khawaarijta u qaabilsanaa howlgallada ay ku magacaabaan howlgallada xeebaha. waxaa kaloo halkaas howlgalku intuu socday la xaqiijiyay in la khaarijiyay horjoogaha lagu magacaabi jiray Macallin Salaxay oo isaguna qaabilsanaa khawaarijta u qaabilsanaa weerarada ay ku qaadaan degmooyinka Awdhigle, Qoryooley, Bariire iyo degmada Janaale deegaano hoostaga. waxaa sidoo kaleeto la xaqiijiyay in howlgalkaas lagu khaarijiyay horjoogo kale oo la daba socday oo lagu magacaabo Macallin Xaashi kaas oo qaabilsanaa inuu hogaamiyo waxa ay ugu yeeraan jabhadaha maleeshiyaadka khawaarijta ah ee ka howlgala gobolka Shabeellaha Hoose. inta uu socday howlgalkaas waxaa sidoo kaleeto la burburiyay kayd weyn oo maleeshiyaadka khawaarijta halka ay ku lahaayeen oo ahaa kayd hub kaas oo markii howlgalku uu ku bilowday xalay ilaa waqtigan aan idinla hadlayo gubanaya isla markaana dad badan oo gobolkaas ku nool ay arki karaan gubashada halkaas ee ka baxaysa. sidoo kale inta howlgalku socday waxaa la burburiyay gaadiid goobta yaalay oo isugu jiray gaadiid ay saanad ahaan u isticmaali jireen khawaarijtu iyo gaadiid ahaa mid dagaal iyo sidoo kaleeto qayb ka mid ah gaadiidka ay u isticmaalaan walxaha qarxa oo goobtaas yaalay. sidoo kale wasiir Al Cadaala ayaa intii uu socday shirkaasi jiraahid waxa uu soo hadal qaaday qodobadii ka soo baxay shirkii 4 maalmood magaalada Muqdisho ugu socday culimada Soomaaliyeed oo uu casuumad u fidiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud si ay u cadeeyaan fikrada khaldan ee ay dalal shisheeye ka soo minguuriyeen kooxdaasi khawaarijta ah. in culimada Soomaaliyeed ay maalmo ka hor soo gabagabeeyeen shirkoodii ballaaraa oo qaybaha kala duwan ee culimadu ay isugu yimaadeen. waxaan dadka Soomaaliyeed xusuusinaynaa fariimihii qiimaha badnaa ee culimadu halkaas ay ka soo jeediyeen 5 qodob oo ka mid ah ama 5 qaybood oo ka mid ah. qaybta koowaad waxay ahayd isbarbardhigii culimadu ay ku sameeyeen dawladda iyo khawaarijta marka loo fiiriyo diinta Islaamka. waxay sheegeen khawaarijtu inay yihiin kuwa baadiyeysan oo duulaan ku ah dadka iyo dalka Soomaaliyeed. waxayna cadeeyeen waajibnimada diineed ee saaran dadka Soomaaliyeed in lala dagaalamo khawaarijtaas oo la cirib tiro. sidoo kale culimada Soomaaliyeed waxay mar kale cadeysay ku taagnaanshaha dawladda Soomaaliyeed ay ku taagan tahay u adeegidda shareecada Islaamka
iyo sida shaqooyinkoodu ay u waafaqsan yihiin diinta islaamka iyo sida ay waajib u tahay in lala shaqeeyo dowladdana ay mas-uuliyaddeeda iyada tahay in ay dadka u ilaaliso diintooda iyo dalkooda iyo jiritaankooda iyo karaamadooda. waxaa kaloo runtii xusid gaar ah mudan iyo dul istaagid marka ay ka hadleen culimmada Soomaaliyeed waxa uu askariga Soomaaliyeed u taagan yahay ama uu ka dhigan yahay diin ahaan oo ay sheegeen inuu yahay mujaahid difaacaya diinta islaamka waajibna ay tahay in lagu saacido oo lagu garab siiyo halka ay xukumeen in canuga khawaarijka ah ee la dagaalamaya askarigu uu yahay mujrim ay waajib tahay in la dilo oo tallaabo laga qaado maadaama uu duulaan ku yahay dadka iyo dalka Soomaaliyeed. waxaa kaloo runtii culimmada Soomaaliyeed ay caddeeyeen waajibka laga rabo shacabka Soomaaliyeed oo ah inay xaqqa garab istaagaan oo ah in ay waajibka diinta islaamku ay saartay ay fuliyaan taasoo ah in ay ka qayb qaataan dhammaantood dagaalka ka dhanka ah khawaarijta. si kastaba ha ahaatee weeraradan isdaba joogga ah ee kooxdan lagu beegsanayo ayaa soo kordhaya waxaana hay-adda nabad-sugidda iyo sirdoonka qaranka ay si aan kala har lahayn u daba joogtaa haraadiga kooxdaasi ilaa iyo laga cirib tirayo. keenan cabduqaadir xuseen, warbaahinta qaranka, muqdisho.